بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد waxaa kusoo dhawaataan cashir chemistry ah kaasoo ciwaankiisa uu yahay science and its branches saad hore ugu barteenba waxaan mar walbo kanaalkayga aan liibaan farxayo soo gelin jiray cashiro kala duwan ha u badnaadaanba chemistry iyo biology-ga haddana waxaan toos u bilaabay manhajkan cusub ee hadda dhow ee dawladda soo saartay ayaan insha Allah soo gudbin doonaa soo taxana ah cashir walbo waxaan diirad saarayaa labada maadada chemistry iyo biology-ga insha Allah kuwa kalena waxaan rajeynayaa iyaga inaan soo gelin doono marka maanta waxaan kormaraynaa chemistry ayaan kormaraynaa oo fasalka form 1 waxaan kaloo insha Allah soo gelin doonaa fasalka form 4 hadii Ilaahay yiraahdo fasalka form 1 cashirkiisa ugu horeeya ama yaan maanta qaadanaynaa wax soo jeedinaya waa aniga Liibaan Yuusuf Cali Farxaayo ku magac dheer maadada waa chemistry ciwaanku waa science and its branches class lagu qaadana waa form 1 saan hor u sheegnay waxaa jirta wax loo yaqaan lesson objectives ahdaafta cashirka by the end of the lesson the learner should be able to describe science and its branches, to classify branches of science and state their subdivision ardayga waxaa laga rabaa describe gareyn kara ama uu sharxi karo wax la yiraahdo science and its branches iyo laamaha uu leeyahay to classify waa ardayga waa inuu kala saari karaa branches of science brancheska ama faracyada uu leeyahay science-ka waa inuu ardayga kala saari karaa waxaa kaloo ardayga laga rabaa inuu sheegi karaa subdivision-ka brancheska waxyaabaha loo qeybiyo waa inuu ardaygaasna sii sheegi karaa science and its branches waa ciwaankeeni maanta the word science ereyga science came from wuxuu ka imaaday Latin word erey Latin ah maan erey Ingiriis maan erey Carabi maan ereygan science ama science waa erey Latin oo ah scientia that means macnihiisu waa knowledge aqoon ereyga science waa Latin word oo ah scientia macnihiisu waa knowledge aqoon marka jumlada intaas ay sheegaysaa the word science come from Latin word scientia that means knowledge marka soo duub ereygan science macnihiisu waxa waa knowledge science knowledge science haddii aad maqasho science maxay tahay waxaa leedahay waa knowledge aqoon qeexidiisii waxaan leenahay science is the study of nature waa barashada nature-ka nature waxaa loo yaqaanaa waxyaabaha dabiiciga ah marka laga hadlayo dabiicina waxay noqonaysaa land and everything on the land dhulka iyo wax walba dhulka dul saaran waxaan kaloo baranaynaa marka under behavior dabeecadaha of physical affairs koonkan dabeecadaha uu leeyahay koonka marka laga hadlayo dabeecadaha uu leeyahay waxaa soo galayo wax walba koonka dul nool dabeecadaha ay leeyihiin passed on iyadoo loo marayo scientific method hanaan la yiraahdo hanaanka cilmiyeysan waxaan maraynaa hanaanka cilmiyeysan ayaan u maraynaa markii daraasaynayo waxaan kasoo baxnaa hadda ereyga science meeshuu ka imaaday waxaan dhahnay waa erey Latin oo scientia ah macnihiisuna waa knowledge aqoon tacriiftiisana waxaan ku sheegnay barashada nature-ka ama waxyaabaha dabiiciga ah dabiici waxaan ku sheegnay dhulka iyo wax walba dhulka dul saaran and behavior of physical affairs iyo maxaa lahaa dabeecadaha waxyaabaha physical affairs ah ama waxyaabaha koonka ku dhex nool ama ku dhex jiro koonkan iyo wax walba koonka waxaa la dhex dul saaran markii la baranaayana waxaa lagu barnaa dariiq la yiraahdo scientific method hanaanka cilmiyeysan branches of science askan laamaha uu leeyahay science-ka waxaa jirto science-ka markii laga hadlayo waxaa lagu soo koobaa laamihiisii saddex ayaa lagu soo koobaa qeyb social science formal science natural science waxaa lagu soo koobaa saddex qeyb oo ah social science natural iyo tan u dambeysa oo ah formal waxaan kormaraynaa social science waa cilmiga bulshada kan wuxuu diirad saarayaa people dadka iyo dhaqanka iyo bulshada ayuu inta badan diirad saarayaa focuses on the study wuxuu diirad saarayaa barashada of people dadka culture dhaqanka
and societies bulshada. tusaale waxaa kamid ah marka geographiga kamid ah, historyga, law oo ah sharciga, linguistic oo ah afafka markii la baranayo, philosophy ayaa kamid ah, falsafada, psychology ayaa kamid ah oo cilmi nafsiga ah, iyo economics oo ah dhaqaalaha. intaba markii la daraasayna marka waxay hoos imaanayaan social science-ka iyo hoos imaanayaan. social science-kan wuxuu hoos tagayaa science. tan labaad waa formal science. formal science waa asina wuxuu maxaa la xiriiraa mathematics iyo logic, xisaabta, iyo wuxuu la xiriiraa waxyaabaha maangalka ah. wuxuu dhahay concerned wuxuu la xiriiraa with formal system habaysan oo ah mathematics and logic, xisaabta iyo logic, waxyaabaha maangalka ah. logic waxa weeyaan waa waxyaaba u baahan solutionka. inta badan waxyaaba u baahan xalinta solutionka ayaa waxaa loo yaqaanaa maangal ama logic. marka logic iyo mathematics waxay hoos tagayaan formal science. formal science wuxuu hoos tagayaa science-ka. kan saddexaad waa natural science. is a science of the physical world. it is the part we are going to focus on. natural science is the science waa cilmiga ama aqoonta oo physical world ee koonka. physical world marka laga hadlayo waxaa hoos imaanaya ama ay noqonaysaa koonkan noolaha iyo noolaha ku dul nool, noolaha ku dul nool iyo noolaha dhex yaalo noolaha ku dul nool iyo noolaha koonka dhex yaalo ay noqonaysaa. it is the parent waa laanta we are going and doonayno to focus on inaan diirada saarno. it is subdivided into eedan waxaa loo sii qeybiyaa 3 qeyb ayaa loo qeybiyaa eedan oo ah kow life science, labo waxa waaye earth science, 3 physical science. inta bayno imaanayaan waxaan kormeynaa marka life science. life science is the science of living organism. waa science-ka ama aqoonta lagu diraasaynayo noolaha nool ayaa waxaa loo yaqaanaa life science, which is the science waa science-ka of living organism lagu diraasaynayo noolaha nool. wuxuu leeyahay life science qeyb ayuu leeyahay. subdivided into waxaa loo qeybiyaa biology iyo ecology. biology-ga waa cilmiga lagu diraasaynayo noolaha nool iyo waxyaabaha aan nooleen. is the study of living thing and non-living thing. biology laftiisa waa lasii qeybiyaa oo waxaa loo sii qeybiyaa zoology oo ah cilmi lagu diraasaynayo xayawaanaadka, iyo botany oo ah cilmi lagu diraasaynayo dhirta. faraca kale waa ecology. marka laga hadlayo life science waxaa loo qeybiyaa biology oo ah cilmi lagu diraasaynayo waxyaabaha nool iyo waxyaabaha aan nooleen, iyo ecology oo ah cilmi lagu diraasaynayo bii'ada ama deegaanka. tan saddexaad ama tan labaad oo b ah waa earth science, waa aqoonta dhulka. with the science waa aqoonta of the earth ee dhulka, its atmosphere iyo atmosphere-ka ama hawada ku wareegsan dhulka, and space iyo baaxadda dhulka ayaa lagu diraasaynayaa asna waxaa loo sii qeybiyaa marka into geology, meteorology iyo astronomy. geology waa cilmiga lagu diraasaynayo dhulka, meteorology waa cilmiga lagu diraasaynayo saadaasha hawada, astronomy-na waa midka lagu diraasaynayo waxyaabaha falakiga ah ama cilmi falaki ama xidigaha iyo waxyaabaha hoos yimaada. kan u dambeeyo si waa physical science. asina waxaa weeye with the science waa aqoonta that studies taasoo lagu diraasaynayo matter walaxda, energy tamarta, and the physical properties of the universe iyo astaanta. sidoo kale waxaa lagu diraasaynayaa physical properties of the universe iyo astaanta muuqan koonka. it's subdivided waxaa loo qeybiyaa into physics iyo chemistry ayaa loo sii qeybiyaa. kan physical science waa lasii qeybiyaa, waxaa loo qeybiyey physics and chemistry. marka physics aydan waa maada aad u balaaran waayo u baaxad weyn. chemistry-na waa sidoo kale. waa chemistry waa mid hadeer aan rabno in anaga xooga aan saarno. inta hadeer aan soo sheegayna dhan waxaan ka qaadanaynaa qeybtan yar oo ah chemistry-ga. lasoo kooban waa kan science-ka waxaan u qeybinay 3 qeybood: natural, social iyo formal science. anaga waxaan u baahannahay naturalka midka aan xooga saarayno.
naturalkaasi qaybin waxaan u qaybinay physical life iyo air haddana saddexdaana midaan kasii qaadanay laba midaan kasii qaadanay oo ah physics iyo chemistry waxaan kasii qaadanaynaa haddana bis waxaan kasii qaadanaynaa chemistryga bis marka kan bisaan u baahanaa chemistry bisaan u baahanaa marka socialkasina waa soo sheegnay waxaa hoosgalaa geographigii iyo historygii wax dhan waxay hoos imaanayaan social formal science-kan waxaan dhahnay waxaa hoos imaanayo mathka iyo waxyaabaha maxaa ladaasi logiga ah ayaa hoos imaanayo iyo waxaa kaloo hoos imaanaya haddaane logic waxyaabaha maangalka ah ayaa hoos imaanayo waxaan kaloo soo sheegnay physicalka labadaana u qeybinay airtig waxaan usoo qeybinay asiyada xusuustaan astronomy iyo meteorology iyo geology life-kan waxaan u qeybinay labaan u qeybinay oo ah biology iyo wuxuu ahaa iyo ecology inkan wuxuu ahay ecology marka waxaan rajeynaya in aada loo fahmay haddii aada xoogaa marka koowaad aad fahmayso mar labaad kusoo ceshisaa u fahantid marka halkaan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkaygii waxaan rajeynayaa in laga faa-iideysan doono adiga ka faa-iideyso haddii aad taqaano u sheer garaya walaalkaaga isna ka faa-iideysto kanaalkan aniga iskale like saar subscribe saar waa mahadsantihiin